بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتاي كلنتو wanaagsan meel kasto dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan caawa faaqidin doonaa ama falaqan doonaa tartanka ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ee Champions League ma foga meel fog ma jiro waxa la baasan doonaa habeen dambe Champions League waana tartanka ugu xiisaha badan dhammaan qaaradda Yurub waxaana sabab sanad walba isku arka naadiyaasha waaweyn ee ka dhisan qaaradda Yurub tartankan waxa uu yahay tartanka ugu daawashada badan adduunka maadaama sanad walba uu kaalintooda u galo tartamada aad iyo aad loo xiiseeyo maadaama iska hor imaanayaan naadiyaal tun weyn oo aan isku horyaal ahayn iskuna arkaya Champions League saaxiibayaal tartankan waxa 14 jeer ku soo guuleysatay naadiga lagu magacaabo Real Madrid waxayna sanadkii xaqiiqda la soo dhaafay ay naadiga Liverpool ku soo jiday hal iyo eber saaxiibayaal waana championkii ay qaado 14aad ay qaado ay adduunka waana naadiga ugu championka badan dhammaan qaaradda Yurub tartankan ma foga waxa la baasan doonaa habeen dambe hadii ay tahay markii ugu horeysay saaxiib aan soo boqoto channel-keenan fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsantahay saaxiibka janqadkaaga waxaana ka dabagalin doonaa xaqiiqooyin badan oo ka dambeeyay maadaama Champions League uu yahay tartan soo jireen ah waxaan ka dabagalin doonaa 10kii sano ee la soo dhaafay naadiyaasha soo qaaday iyo naadiga ugu badan ee soo qaaday 10kii sano ee la soo dhaafay oo wax badan ka soo qaaday ayaan saaxiibnii faaqidin doonaa tan iyo 2012 ayaan saaxiibnii faaqidin doonaa Champions League naashii ku soo guuleysay iyo naashii ugu awood badan ee xoog ku soo qaaday awood ku soo qaaday halka ay ka dhaxan doontaa naadiga ugu tirada badan ee 10kii sano ee la soo dhaafay ku soo guuleysay Champions League saaxiibayaal hadeen la socda ayaan leenahay saaxiib channel-kana ku soo biira saaxiibada ku cusubna subscribe noo sar ayaan leenahay saaxiibayaal naadiga lagu magacaabo Real Madrid waa naadiga mar walba laga filan karo inuu ku guuleysto Champions League mar walba laga baqayo inay soo qaadaan Champions League maadaama sanadkii dhawaato aan ogeyn Champions League say ku soo qaadeen maadaama naadiga loo maleeyay in naadi ku haraya aan ku guuleysan doonin ama aan gaari doonin heerka sare ee Champions League laakiin waxa uu soo rabay dhammaan naadiyaasha loo saadaalinayay Champions League ay ka mid tahay Paris Saint-Germain in adiga Manchester City in adiga lagu magacaabo Chelsea in adiga lagu magacaabo Liverpool ee finalka ay ka qaaday saaxiibayaal marka tartankan mar walba wax u xiga oo mar walba u janjeera dhinaca naadiga Real Madrid saaxiibayaal waxa 2012 soo qaaday aan ka soo bilaabi doonaa naadiga Chelsea waxa ku soo qaaday awood ay ku soo qaaday waxayna ka qaaday naadiga lagu magacaabo Bayern Munich oo rigooro isla tageen marka kulankaana wuxuu ahaa kul aad looga yaabo maadaama naadiga Chelsea aad loo weerarayay naytigiina lagu helay rigoore uu khsaariyay laacibkii hore ee Chelsea iyo Real Madrid lagu magacaabi jiray laacibkii garabka ku dhaleeyay naadiga Bayern Munich Robin ayaa khsaariyay rigoorahaas marka saaxiibayaal 2013 waxa mar kale final timid naadiga lagu magacaabo Bayern Munich ayadoo la timid naadiga isku horyaalka yihiin ama isku liiga yihiin ee Dortmund waxaana soo qaaday Champions League sanadkaas naadiga lagu magacaabo Bayern Munich 2014 Real Madrid ayaa soo qaaday saaxiibayaal 2015 naadiga Barcelona ayaa waxa Juventus ka qaaday waxaana u sheegtay awood maadaama naadiga Barcelona sanadkii 2015 uu ahaa naadiyaasha ugu awood badan dhammaan qaaradda Yurub waxa uu haystay iyo waxa laga filayay mar walba Barcelona waxay ahaayeen inay kuraayeen goolal badan oo inay ciyaaraan boona qurux badan naadiga ka soo jeedina ay cad u jiraan ayuu sanadkaasna waxa ku socontay naadiga ku ciyaara Camp Nou ee lagu magacaabo Barcelona 2016 waxa soo qaaday naadiga Real Madrid waxayna ka qaaday naadiga ay dariska yihiin ee lagu magacaabo Atletico Madrid naadiga mar walba jibinta iyo dagaalka nimankaasa militariga ay ka soo qaadeen sanadkaas wuxuu ahaa sanad aan inaba aan caadweyn ama khaas u ah naadiga lagu magacaabo Real Madrid 2017 saaxiib waxa mar labaad qaaday naadiga lagu magacaabo Real Madrid waxayna ku soo qaaday si awood ah oo aysan inna aysan ka baqayn awood dhaaftay ay ku soo qaadeen naadiga lagu magacaabo Real Madrid 2018 waxa ay saxanaadi soo qaaday Champions League naadiga lagu magacaabo Real Madrid oo markii saddexaad oo xiriir ah ku guuleystay Champions League markaas waxa uu dhaliyay lama joojiye laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo ahaa ninka ugu goolasho badan dhammaan tartanka Champions League
2019 saaxiib waxaa soo qaaday naadiga lagu magacaabo Liverpool ee ka dhisan horyaalka Premier League waxayna ku soo tunteen naadiga isku liiga yihiin ee Tottenham oo markeeda ugu horeysay tagtay Champions League sanadkaas wuxuu ahaa khaas u ah naadiga Liverpool iyo naadiga Tottenham maadaama Tottenham ay tagtay final 2018 2019 2020 waxaa si aan inaban caadi ahayn kusoo guuleysay Champions League naadiga lagu magacaabo Bayern Munich waxayna ka soo qaadeen naadiga Paris Saint-Germain markaas oo naadigaas uu awood dhaaftay ku haysay qaaradda Yurub maadaama naadiga lagu magacaabo Barcelona ay ceebeysteen 8-2 ay kusoo jireen wareegga baxda saaxiibayaal kulankaasna wuxuu ahaa kulan inaba aad u cakiran laakiin waxaa hal iyo eber ku dirdhay naadiga Paris Saint-Germain naadiga lagu magacaabo Bayern Munich haddii aan soo gaarno 2021 naadiga Chelsea ayaa waxay ku soo qaaday awood maadaama la arkaya waxa soo bandhigtay sanadkaas oo aad looga yaabanaa naadiga Chelsea ee ka dhasha horyaalka Premier League waxayna ka soo qaadeen oo hal iyo eber ku direen naadiga isku liiga yihiin ee lagu magacaabo Manchester City oo lacag badan iyo kharash badan gelisay si ay u guuleysan lahayd Champions League saaxiibayaal sanadkan Chelsea wuxuu ahaa sanad dahab ah sanad wuxuu ahaa ay naadiyaal badan soo jireen maadaama naadiga lagu magacaabo Real Madrid ay ku soo jireen bugbaxa sanadkan 2022 waxaa ku soo guuleysay naadiga lagu magacaabo Real Madrid waxayna soo jireen naadiga 2018 ay soo jireen ee lagu magacaabo Liverpool marka sanadkan san khaas ayuu ahaa waxayna hal iyo eber uga badiyeen naadiga lagu magacaabo Liverpool marka sanadkan waxaa arkaa 10 sano ay ugu dambeysay in naadiga lagu magacaabo Real Madrid iyo naadiga lagu magacaabo Chelsea naadiga lagu magacaabo Bayern Munich inay yihiin naadiyaasha ugu badan ku soo guuleysay Champions League maadaama naadiga Real Madrid ay ku soo guuleysan 4 jeer 5 jeer oo kamid ah 10 sano ee la soo dhaafay waxaa naadiga Chelsea ay soo qaadeen 2 jeer halka Bayern Munich ay soo qaadeen 2 jeer marka waxaa dareemi karaa 10 sano ugu dambeysay in saddexdan ay yihiin saddex naadi ugu awood badan dhamaan qaaradda Yurub maadaama ay ku soo guuleysteen Champions League 2 jeer iyo mid ay ku soo guuleysteen 5 jeer naadiga Real Madrid ayaa mar walba naadiga loo xaqlin karo ama loo leecin karo inay ku guuleysan karaan Champions League saaxiibintaas ayaan ku saafeynaa haddii aad weli la sii joogtid waxaan ka codsanayaa subscribe noo saarid waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga